sidii baanu ninka gaarigii iga qaday. marka ma gaarigaagii taksiga ayaa wadateed gacantaada ku wadatay buu kaa qaaday? haa, gaarigii taksiga ayaan watay, ninkaas xoog buu ku qaaday. haddii aad maqli jirtay sirdoonka leexsan ayaa qof ka afduubtay magaalada Hargeysa, markan waxaan kuu hayaa arrin kale oo naxdin badan. waa Ciise Cabdi Cali oo ka mid ah dhalinyarada ku shaqaysata tagaasida dhaweeyaha loo yaqaano. waxa uu caawa dil ula badheedhay mid ka mid ah sirdoonka leexsan. rasaas alle Ciise ka badbaadiyey ayuu ku furay isagoo bulshadu wada arkayso. intaasi uun ma aha ee caawa waxaa sirdoonka leexsan u afduuban gaadhigii Ciise oo uu qasab kaga furtay. waa kan Ciise Cabdi Cali oo ila soo xidhiidhay, waxaanu iiga warramay sida wax ugu dhaceen. xamsakiyo maanta mar dhawey toole fidkii anigoo taagan halka suuqa dhexdiisa ayaa waa nin magaranaysaa gaari shiciga wata oo caadiya ayaa soo ag istaagay. markii uu soo ag istaagay wuxuu yiri maxaad meesha ka qabanaysaa suuqa bartankiisii? markaa dabeetana uu soo degay. maxaa dhacay markaan ku yirina qorigu gala booday. markii aan dhulka u soo degayna xabad buu cabaystay. markaas dabeetana xabadii uu guriday ninkii uu gaarigayga dul martay. xabadii ilaahay wuu ka badbaadiyey. dadkii suuqii wuxuu ku soo xoomay ku soo yaacay. markii dabeetana aan meeshii ka baxsaday shaarkii waxaan xidhan waan fanaanad baan xidhan fanaanadii waan iska bixiyey. dabeetana adigu gaarigii asagaa sidii ku kaxaystay, sidii baanu ninka gaarigii iga qaaday. marka ma gaarigaagii taksiga ayaa wadateed gacantaada ku wadatay buu kaa qaaday? haa, gaarigii taksiga ayaan watay, ninkaas xoog buu ku qaaday. markii dambe aan shicibkii ku soo noqday dadkii magaranaysa waxay weydiiyeen ninka askari buu ahaa baa laygu urday. ciidamada ayuu ka tirsan yahay sirdoonkaa laygu uri. markaa dee dulmigaa weyn baa caawa igu dhacay oo xilligaa igu kalifay inaan warbaahinta aan soo waco. waay gaarigaagu nooceebu ekaa bal shacabka si ay gaarigaaga u raadiyaan qaab nooceebu ekaa gaarigaaga? gaarigaygu waxaa gaari cad oo fitisa oo H0134. waay maxay kula tahay inuu ninkaasi kugu soo weeraraad isku qabsateen? wax allaale wuxuu ugu soo weeraray ninkaasi ma jirin. diriis muu xidhnayn, taraafika muu hayn, gaari ciidan muu wadan. dee ninkaas unbuu ahaa un aan isiriday. sababtu kugu soo doontay iyo wuxuu kuugu yimiday iyo wax allaaliya de maba jirtaba. ilaa iyo imikana gaarigaaga waxaad noo xaqiijinaysaa in gaarigaaga gacantaada ka maqan yahay? gaarigayga inuu gacanta ka maqan yahaa oo aanad gacan ku haynin? markii salaada taraawiixda lagu jirayna ay ugu dambeysay. maxaad ku xaqiijinaysaa in gaarigaaga kaa maqan yahay imika ood nala wadaagi kartaa? waxaan ku xaqiijin karaa dee imika waxaan ku xaqiijin karaa dee gaarigayga in iga maqan yahay. dee bil-aadankii iyo dadkii iyo ehelkii dee dadkii o dhan waa wada ogyihiin. laamihii cadaaladii dawladdii ma la xidhiidha iyo markaa ma diiwaangeliso oo gaarigaasaa iga maqan oo ninkaasa xoog iga kaxaysta ma tidhi? maymaan odhan. asaga laftarkiisabaa ciidan oo sirdoona baa laygu uri. waay maxaad ugu tegi weyda laamiha cadaaladda markaa? gaarigaygina nin ciidana baa kaxaystay baa laygu uri. waay aad iyo aad baad